صواب أهم أنكر سني يا عادي هذا ليه أهم أنكر سني هي ها قرب أنا تويسيتك يا تويسيتك هذا أفكار عادي هذا سؤال مديرك كجواب يا تويسيتك أنا وكنا نعقب بحياة ما قدعين cali aadan maxamed waa horjoogaha mid ka mid a labadan kooxood waana maskax dooriyaha iyo howlgeliyaha shanta kale ee la eedaysan maxamuud leesow xuseen mustaf maxamed nuur maxamed cali buubaahi baariye aadan iimaan iyo fardowso sheekh nuunow caliyow leesow waa bambatuure mustaf isa soo dhiibo hore oo mar dhaqan celinta soo maray uqaabilsanaha maaliyadda kooxdan safka kula jirtay uu horjoogaha u yahay cali aadan caadiysta ka tirsan al-shabaab buubaaye jaasuus soo unka halka ibtilada ee argagixisadu u qorshaynayso laakiin waxaa si gaara ugu sii sahlaya howlaha guraacan fursadaha uu ka heli kara xafiisyada dawladda waxaanu la jeedaa waa dhal dawladeed baariye iyo fardowsa waa daabulayaasha bambooyinka iyo miinooyinka baydhabo ka dhacay 2017 markanna waa koox kale iyo horjoogo kale waa koox xaafadeed aan la iska qarin wejiyadooda bilowga tababarkii ay argagixisaha al-shabaab ka heleen ciidamada gaarka ee nabad sugidda koonfur galbeed Soomaaliya oo ku howlgelaya xogaha xooraan ay ka helaan ilaha qarsoon ee hay'adda ayaa mar kale xabsiga ku kulmiyay kooxdan oo uu xiriiriyahooda fadhiyo goobgudul Shabeelo Xuseen Isxaaq Cali Nuur waa horjoogaha shabakad kale oo ku dabciya dhaqan ah kooxdan lala maxkamadeynayo waxa isna ka howshaqeynaya Maxamed Kuule Xuseen ku xogeenkiisa iyo gacanta koowaad ee qaraxyada iyo maaliyadda ay u martoynta kale ee ka hooseyso kadib waxaa howshan iska kaashin jira fulinteeda Cabdi Macalin Aadan Gurey iyo Cabdi Naasir Cali Kuuso maqaaxi ay qarax dhigeen sidoo kale meel dadka ay isugu yimaadeen oo ciyaar dhaqameed ah ay qaraxyo ka fuliyeen Faysal Cali Aafow iyo Xaajow Xuseen Xasan waxay sahan u ahaayeen dhammaan falalkii argagixisay ee kuwan geysteen Maxamed Macalin Cabdi Yariiso waa sahmiye balse ay al-shabaab ka dalbatay meel iyo shakhsiyaad ka mug iyo macno weyn soo jeedintiisa oo ahayd goobo dad danyar ah ay leeyihiin xaaladdu waxay sii adkaatay markii ay kooxdankeed haye ka dhigteen gabar qabta baahiyaha gaarka ah xasuusteedana aysan ku jirin mar ay indho lahayd waxaan kala hadlayaa dhigan xasan xasaney leylo kanna waa maxamed cabdi cali moole waxaa mootadii uu saarnaa kala degay isaga iyo bam F1 uu watay ciidamada booliiska koonfur galbeed Soomaaliya qorshihiisu waxa uu ahaa ku tuuridda bam F1 rug ay leeyihiin hay'adaha amniga midkoodna ma diidana ka mid ahaanshiyaha al-shabaab iyo dhacdooyinka eedooda ku xusan laakiin dhammaantood waxay ku doodayaan inay isaga hareen kooxda okay dhamaale 2019 dambeeyay arinta maraan ka mid ahaa jiray haddana waan ka baxay 17 aan ku biiray 19 ugu dambeysay akaan duwaan gelin aan haysaa salaayo gobol 19 dambeeyay 17 ka biiray 2019 ku baxay كنت متعود لجلدنا سلامه كنت متعود كوي شباب كما ترسنين مرة تاكتنا زولي قف شعبا سكا أو في غرابنا كل شوي أنها جبهة يلا توبة جفت لما كنت من توضع كبير تمسيت كي أكفر هذه ورمه تدوي توانكي lama kuntu mid oo tumaysa ila tumaysa marana gadadana kunagadi ciidamadii fashiliyay unugyadan ee maxkamadda dhageysatay ee baarihii qaabilsana gal dacwadeedka kulansaday shakhsiyaad isku xirfad iyo dhagar wadaag u ahaa maleeshiyada al-shabaab gaashaanle Axmed Cabdullaahi Xeelaali xigeenka ciidamada ayaa maxkamadda la wadaaga natiijo baariseed ay u dhameystiran tahay tiirarka ay u cuskadeen dacwad oogistooda ka dhanka ah 15 qofood waxaa meesha fadhiyo gabar la yiraahdo dhigan oo eedeysana waxay ku eedeysan tahay in al-shabaab ay u qaabilsaneed keedinta hubka haddii aad fiiriso muuqaalka gabadhaas waa gabar naafa isla markaana indhool ah labada indhoodba aan waxba ka arkayn kooxdan arxanlaawayaasha waxay uga faa'iideysanayaan qoftaas maadaama aysan arkaynin waxa loo dhiibaayo ayay keed ka dhigteen si la mid ah ciidamada amniga markay goobta yimaadaan kama shakinayaan qof indhoola al-shabaab ka tirsan isma dhahayaan sidaas darteed ay uga faa'iideysanayeen qaraxyada ay qarxinayaan iyo bambooyinka waxay dhigi jireen guriga gabadhaas indhoolasha
halkaas ayaan laga qaadan jiray marka la howlgalaayo raggan shabaabka ka tirsan arxandaradooda dhimashada ay geysteen iyo dhaawaca iyo ka faa'iidaysashada ay ka faa'iidaysteen qofkan aan itaalka iyo lixdiisa lixaataamka ahayn waxaad ku arkaysaa naxariis darrada ay wataan sidaas darteed bacdamaa maxkamadda aan soo bandhigay markhaatiyaal si buuxda eedaysanayaashaan ugu caddeeyey faldembiyeedka shabaabnimada iyo dilka iyo dhaawaca ay geysteen si la mida aan hor keenay maxkamadda agab ayaga lagu qabtay kaasoo ahaa bamba F1 ay ridi rabeen saa darteed maxkamadda sharafta leh waxaa si xushmad leh uga codsanayaa in dhammaan eedaysanayaasha loo aqoonsado inay ka tirsan yihiin kooxda al-shabaab isla markaana ay yihiin dambiilayaal qareenka u doodaya eedaysanayaasha ayaa maxkamadda ka codsaday in la kala saaro dalabka xeer ilaalinta oo aan kala xadidaynin heerarka dambe ee loo haysto muwaakiliintiisa mudan gudoomiye maxkamadda sharafta leh dad qaarkood sanadkooda waa iska yar yahay nidaamka ama xeerarka ee qawaaniinta dalka waa kolay waa la isla wada og yahay mudan garsoor maxkamadda sharafta leh shariicada islaamka afarta madhab ka mid ah xanafiyada qofka 18 sano ka yar aan gaarayo sida ay qabta shaafici laakiin 15 sano mudan gudoomiye maxkamadda sharafta leh waxaan rabaa in soo gabagabaysto in gabadha la yiraahdo dhigan in maxkamadda xorriyadeeda siiso siduu tilmaamayo qodobka 122 xeerka habka Soomaaliyeed mudan gudoomiye maxkamadda sharafta leh rag kale oo qaar ka mid ah baaraha sheegay in aan waxba howlgal aan fulin gaashaanla sare xasan cali nuur shuuti gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ayaa soo xiray fadhigan maxkamadeed oo gabagabo waa habraaci dacwadeed ay soo mareen 15 eedaysane dhegaysiga garmaqalka dhanka ka ah 15 eedaysane halkaas ayuu ku dhan yahay maxkamadda ayaana go'aan ka soo saarayso wabillahi tawfiiq